kormeerkan ayaa ujeedkiisu ah hagista baarista booliiska waxaana xeer ilaaliye ku-xigeenada xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ay ku tageen saldhigyada booliiska degmooyinka Kaaraan, Hiliwaa, Yaaqshiid iyo Shibis. Kormeerka waxaa ku helinayay taliyaha booliiska qaybta bari ee gobolka Banaadir Gaashaanle Cali Calasow Xasan Goof Jooge. Mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa mid ula kulmay taliyayaasha degmooyinka Kaaraan, Gaashaanle Salaad Cali Caraale, taliyaha booliiska degmada Hiliwaa, Kabtan Maxamed Axmed Cabdullaahi, taliyaha booliiska degmada Yaaqshiid Gaashaanle Macalin Aadam iyo sidoo kale taliye xigeenka booliiska degmada Shibis Xidigle Cabdirasaaq Maxamuud Xaashi. Waxaa sidoo kale qayb ka ahaa wareysiyada baarayaasha saldhigyadaasi ayaga oo guud ahaan laga wareysay xaaladda maxaabiista ku xiran saldhigyada ay mas'uulka ka yihiin, sida loola dhaqmo noloshooda, ilaalinta xuquuqaadka dastuurka uu siiyay maxbuuska. Taliyayaasha ayaa dhankooda xeer ilaaliye xigeenada u sheegay dhibaato ay ku qabaan maxaabiista marka ay soo qabtaan kadib, ilaalinta noloshooda, saldhigyada oo aan lahayn qolal badan oo wax lagu xiro, iyo sidoo kale cunada maxaabiista la siin lahaa oo mararka qaar jeebkooda ay ka bixiyaan taliyayaasha saldhigyada degmooyinku. Xeer ilaaliye xigeenada ayaa talooyin ka siiyay baarayaasha dembiyada iyo saraakiisha ciidanka sidii loo hagaajin lahaa qaladaadka baaris ee mararka qaar dhaca. Maxaabiista ku xiran xabsiyada saldhigyada qaybta bari ee gobolka Banaadir oo u badnaa ciyaal weeraro lagu soo qabqabtay ayagoo gacmaha kula jira falal dhac, dhaawacyo iyo sidoo kale dilal isugu jira. Waxaa sidoo kale jiray maxaabiis u xirnaa dembiyo fudud. Xeer ilaaliye xigeenada ayaa maxaabiista ka wareystay sida loola dhaqmo noloshooda iyo ilaalinta xuquuqaadkooda. Xeer ilaaliye xigeen Mustafa Maxamed Macalin oo markii uu soo dhamaaday kormeerkan la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in muhiimadda kormeerkoodu uu ahaa isku dheelitirka shaqada xafiiska, garsoorka iyo laamaha amniga si loo hubiyo in dhibanayaasha iyo garsoorka iyo laamaha amniga ay wada shaqeeyaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maantayto waxaan kormeer ku sameynay saldhigyada booliiska degmooyinka Kaaraan iyo Hurwa iyo Yaaqshiid iyo Shibis oo hadda kusoo gabagabeynay qaybtaas oo la isku yiraahdo qaybta bari oo aan u kuurgaleynay qaabka mataqaanaa loola dhaqmo dadka maxaabiista iyo xuquuqdooda iyo baahiyaha ka jira iyo habka ay tahay sharciga in maaragtay loo fuliyo. Runtii si wanaagsan ayuu noogu soo dhamaaday, xog badan aan ku soo aruurinay, wacyigelin fiican oo ku soo sameynay. Waxaan rajaynaynaa wixii wanaagsan aan soo aragnay inaan annaga dhiirigelinay in la sii xoojiyo, wixii khalad oo jirana in la saxo insha Allah. Trainingkana iyo mataqaanaa wixii maaragtay aqoon kororsi iyo lagu biirin karo in lagu biiriyo, sidoo kaleeto wixii caqabado oo jirana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan qayb ka noqono si loo xalin lahaa. Waana mahadsantihiin. Taliyaha booliiska qaybta bari Gaashaanle Cali Calasow Xasan Goof Jooge ayaa uga mahad celiyay xafiiska xeer ilaaliyaha kormeerka ay ku sameeyeen saldhigyada qaybta bari. Waa uga mahad celinaynaa booqashada iyo kormeerka. Waxaan ka codsanaynaa inay isdaba jooga ay noogu kormeeraan haddii qalad dhacaya ay qaybsan ka naqano, anay dadku aysan isla halaysan oo aysan dhihin si aysan isu dhiganin, in la isla xisaabtamo, la yiraahdo maxaa ka qaldan maxaa kuusan sidii maanta oo kaleba qalad arkaana inay waa nala saxeen, wixii qaldanay iyo wixii kale soo wanaagsanayna waa isla soo wanaajinay. Intaas kadib waxaan rabnaa mahad celin kadib qaybta bari ee taliyihii qaybta aan ahay waxaan soo dhaweynaynaa si qaas ah saldhigyada qaybta bari inay soo kormeerkooda uu joogto ahaado oo uu noqdo mid aan la is ogeysiin oo waliba uu noqdaa mid shaqal isku xisaabtan oo ahay maanta bilaabo oo ahay midka waxa ka dambeeya wuxuu noqonayaa isla xisaabtan. Kormeerkan ayaa lagu tagi doonaa dhammaan saldhigyada booliiska gobolka Banaadir waxaana uu qayb ka yahay qorshaha xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud kaas oo uu ku doonayo in la dedejiyo qorshaha hagista baarista booliiska iyo wada shaqeynta saldhigyada booliiska iyo xafiiska xeer ilaaliyaha. Maxamed Suleymaan Nuur, warbaahinta qaranka, Muqdisho.